akhyaare waxaad ku soo dhawaataan qaybtii afaraad ee sheekadii xiisaha badneed dhimasho ayaan ka xigaa in aan dib kuu soo jeclo ogobay jaleecada indhahaaga buuxshe waa ubax jacaylkuna xigmada qiyaasliyo ma abaado ma ilaado lagamana adkayste ma abaado ma ilaado lagamana adkayste dadna ruuxa ku aaminayay iyo wacad ilaahay dadna ruuxa ku aaminayay iyo wacad ilaahay midna lama ilaawe halayninaya midna lama ilaawe halayninaya. Anise meel walba waa laga raadshay waalidkeed wax walba oo suuragal ah oo gabadhooda lagu heli karaa waa uu sameeyey balse waxay aaminsan yihiin in gabadhooda uu la baxsaday wiilka Ridwaan ah. Anise aabaheed wuxuu ballan qaaday in haddii wiilka Ridwaan ah la qabto la dili doono. Anise aabaheed waxa uu ku dhashay fikir ah inuu shirkadda ka codsado nambarkii ugu dambeeyay ee gurigiisa soo wacay maadaama shirkadda uu walaalkiisu maamulo ka ahaa. Si fudud ayaa loo siiyey nambarka. Haddaba Anise iyo aabaheed waxay isla haystaan hal nambar oo ah kii ugu dambeeyay ee Ridwaan uu ka soo wacay. Talow xaalka siduu noqon doonaa. Anise waxa ay guda gashay in ay wacdo nambarkii ay ku tuhmaysay in laga heli karo Ridwaan. Nasiib wanaag nambarkii wuxuu noqday mid laga heli karo Ridwaan. taleefanka ee wacday Anise waxa uu dhex yeelay baqaar lagu keediyo raashinka oo ku dhex yaala suuqa bakaaraha. Ridwaan baqaarkaasi ayuu waardiye ka yahay habeenkii, maalinkiina waxa uu ka yahay xamaali. Ridwaan waa nin sidaasi ku dabiran noloshiisa. Ridwaan waxaa loo sheegay in uu taleefan u yaala. Markii uu maqlay codka qofka soo wacaya filan waa ayay ku noqotay. Kadib waxay ku ballameen hotel ku yaala suuqa bakaaraha oo ay Anise deganeed. Waxay Anise Ridwaan ka codsatay in uusan cidna u sheegin halka ay ku sugan tahay. Kadib markii uu Ridwaan tagay hotelkii ay Anise ka deganeed, qolada hoteelka maamula ayaa Ridwaan ka diiday inuu gabadha qolkeeda u galo maadaama ay ajnabi kala yihiin oo aysan isqabin. Kadib waxay ku wada hadleen banaanka hoteelka. Waxay bilaabeen in isdhaafsadaan qof walba xaaladda uu ku sugan yahay iyo waxa uu soo maray. Jacayl ayaa la isxasuusiyey. Laba isku xiise qabtaa waqtigu ma dareemaan. Waxaa lagu kor aadamay salaadii maqrib. Ridwaan waxa uu ka habsaamay shaqadiisii galabkaas. Sidoo kale waxa uu ka habsaamay in lagu wareejiyo furaha baqaarka maadaama uu habeenkii waardiye ka ahaa. Kadib waxa uu u cudur daartay gacalisadiisa. Waxa uuna ku yiri macaanay in aan kaa tago ma aanan jeclayn balse meel ayaan mas'uul ka ahay ee goormaan ballamnaa oo aan waqti wada qaadanaa. Waxay ku ballameen in ay is arkaan xilli walba duhurkii inta ay dadku qadada ku maqan yihiin. Ridwaan markii uu soo gaaray goobtii shaqada waxaa ku xanaaqay milkiilaha baqaarka waxaana loo sheegay in ay raadinayeen niman hubaysan oo qoryo wata. Milkiilaha ayaa yiri anigu kuma difaaci karo ee waxaan kaa codsanayaa in aad isaga tagto baqaarka. Nimanka hubaysan ee la sheegayo waa kuwa uu soo diray Anise aabaheed sababtoo ah Anise aabaheed waxa uu helay taleefanka baqaarka ku jira. Habeenkaasi Ridwaan waxa uu sameeyo ayuu garan waayay. Goobta uu isaga joogay waa la soo ogaaday. Haddii isaga la qabto waxa uu ka baqayaa in cadaadis lagu saaro in uu sheego halka ay Anise ku sugan tahay. Kadib Ridwaan waxa uu u cararay dhanka iyo hoteelkii ay Anise ka deganeed suuqa bakaaraha. Waxa uuna ku wargeliyey in uu maanta ka badbaaday dil. Haddii uu joogi lahaa goobta shaqada in la dili lahaa. Isla markiiba labadooda waxay go'aansadeen in ay Muqdisho ka baxaan. Talow xaggee aadi doonaan? La soco qaybtii shanaad.
وعد روح لقلك والكلا كل مو والكلا كل مو لقو يرسادو ويا هاد قبتيو وقتي كان أدقي وكدافيا ويا هاد قبتيو وقتي كان أدقي وكدافيا وسنو بريو مالميه وعنا ويسوسودا 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 مالميه وعنا ويسوسودا